السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي وني سلام كسو دوادا تيمون علي channel. هدي channelka cusub tahay fadlan ha hilmaamin inaad subscribe saarto, like na aad saarto muuqaalkan haddii aad ka heshay waaye asxaabtaadana ala sii wadaagto muuqaalkan maanta gudihiisa waxaan uga hadli doonaa laba shay oo aad muhiim ah haddii aad fahanto gameka wax badan aad ka fahmi doonto. Kow wax waaye how to aim like pro, mid labaadna wax waaye aim correction. midna waa idin sheegaa lacalla haddii cadowgaaga asiga uu ka aim fiican yahay asiga uu ku dilaa si dhaqso ku dilaa. sidoo kale xataa haddii adiga aad ka aim fiican tahay waa dili kartaa, maxaa yeelay aimka lagu sheegayo wax waaye dhaqsida aad ku aadinayso xabadda aad asiga ugu aadinayso. marka waan ku tusi doonaa sida ciyow dhaqsi loogu aadiyo, waan ku bari doonaa. sidoo kale waxaan ku tusi doonaa drills ama training waxyaabo ka saacada inuu aimkaaga khatar noqdo. aimka aad u muhiim u yahay. midda labaad oo aan sheegana waxay ahayd aim correction, waa aimkaaga saxitaankiisa. lacalla adiga meela xabadinaysa cadowgaagana meela ku aragtay, marka maxaa sameynaysaa aim waa saxaysa yani cadowgaaga ku aadinaysaa. marka asxaabta u jeedaan ana muuqaalo wanaagsan oo qurux badan oo aad waxtar u leh ay soo gudbino inayno waxaan karo business like saartaan oo asxaabtina ala sii wadaagtaa. intaas la waa kusoo dhawaad muuqaalka. okay, midda koowaad aan ka bilaaban wax waaye waa maxay aim wax waaye ku aadista aad ku aadinaysid qoriga cadowgaaga waxaa la dhahaa aim. marka waa filan inaad fahanteen. marka haddii aad PUBG dheesho waxaa jirto wax la yiraahdo hip fire oo calaamadda adiga madaxa agteeda kor saaran ama guduud ah ku ahaato ama cadaan ah ku ahaato. hip fire waxaa la calaamadda adiga ku hoos taagan ama agtaada soo socoto markii aad dhaqaaqayso ama markii aad qoriga wadato ama qofka markii aad ku aadinayso. geedkaas aad u jeedo hip fire-ka wuxuu ka saacidayaa inuu aimkaaga saxo. yacni haddii kaasi uu targetka uu ku aadsan yahay si toos automatically adoon wax ka cabsanin xabadda si toos ugu rid, maxaa yeelay si automatically wax ka yar daqiiqado ayaa ku dili kartaa cadowgaaga. marka mar walba waxaa la rabaa hip fire-kaaga inaad la socotid. marka calaamadan yar waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqaaga ku xiran tahay dhaqdhaqaaqaaga si dhaqsi ah yani dhaqdhaqaaqaaga inta dhaqsi uu la eg yahay ayay ku xiran tahay. haddii lacalla ciyow aad dhaqaaqaysid ciyow wax aad ku aadi kartid marka horaa ka dili kartaa. yacni waxaa waaye geedkaas dhaqdhaqaaqiisa oo aad ku aadinaysid waxaa la dhahaa aim waan fiicnaansho. marka training aan ku sheegi doona training oo kaa dhigaya qof laacay. marka trainingkan aad sameynaysid wax waaye hip fire-kaaga la soconaysaa. hip fire-kaaga markii aad hubsatid inuu meesha ku aadan yahay xabad ku ridaysaa. markii aad hubsatid inuu meesha xabad ku aadan yahay ridaysaa. markii aad hubsatid inuu meesha ku aadan yahay xabad ridaysaa. marka mar walba waxa muhiim ah inaad la socotid hip fire-kaaga dhaqdhaqaaqaaga badi yani sida aad dhaqsi ugu dhigi lahayd hifarkaaga sidoo kalena cadowga ayuu dili lahayd. okay, midda labaad waa aim correction, yani aad horta adiga ku taala haddii aad isticmaalayso gyroscope si aad wax ugu aim garayso ama aim switch haddaad sameynayso ama yani si manually aad wax u aim garaynayso. wax dadka aan gyroscope isticmaalan lahaa oo gacantooda ay ku aim garaynayaan, si dadka gyroscope isticmaalana ay taleefankooda dhaqaajinayaan si ay ugu aim garayaan. laakiinse waxaa idin sheegaa waxaa muhiim ah inaad dhaqsi wax ku switch garayn karto, yani aimkaaga hadduu qaldan yahay si dhaqsi u saxi karto. yacni waxaa muhiim ah haddii aad gyroscope isticmaalayso inaad yani aimkaaga saxi karto haddii lacalla uu kaa qaldamo. haddii lacalla cadow uu meel kaaga soo baxo adoo xabadda meel kale ku hayo inaad saxi karto ciyow ku aadi karto switch samey karto muhiim ah. sidoo kale haddii aan isticmaalin gyroscope haddii manual aad isticmaalayso manual naftirkiisa fiican u taqaan la rabo. marka waa inta asxaabta sir aad sheegay gameka wax la isdheeriyaa waa aim fiicnaashada. marka waxaan filayaa inaad fahanteen sirtaas inta ila wadaagay. marka insha Allah sir badan oo ila wadaagi doonaa asxaabta. marka waxaan ka rabaa kaliya inaad subscribe saartaan channelka, subscribe asxaabta aad la wadaagin aad la sii wadaagto yaa daarisi asxaabta. waan islaam dhamaantiin muuqaalkiisa inoo baranaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out man.